عمر فاروق عثمان xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSAID ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. xoghayaha ayaa ka warbixiyay kulan uu kaga qayb galay magaalada Windhoek ee dalka Namibia iyo waliba socdaalkiisa dalka South Africa isagoo sidoo kalena xusay in uu ku xitimi doono magaalada Brussels ee dalka Belgium si uu kaga qayb galo shir heer caalami ah oo ay yeelanayaan ururka saxafiyiinta caalamka waxa uuna carabka ku dhiftay in uu halkaasi ka sheegi doono dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliyeed. bismillaahir rahmaanir rahiim horto waxaan ugu qayb galay magaalada Windhoek ee dalka Namibia kulan ay midowga Afrika uu soo abaabulay oo loogu talagalay arrimaha ururada shaqaalaha iyo qaaradda Afrika dhammaan waxa ka soo qayb galay dalalka Afrika ee xubnaha ka ah midowga Afrika ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAID aad bay arrintaas uga qayb gashay waxaana laga soo saaray bayaan looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqaadka ay leeyihiin dadka shaqaalaha oo ay saxafiyiintu qayb ka yihiin waad ogtihiin dalkeena tacadiyaal fara badan baa ka jira waxaa ka jira xadgudubyo fara badan waxaana runtii ugu muhiimsan waxyaabaha la yiraahdo xorriyatul qowlka iyo xorriyadda ay dadku u leeyihiin ururka ay doonaan inay dhistaan oo ay samaystaan ayay ahayd in looga hadlo annaguna waxaan geynay warbixin ku saabsan dalka Soomaaliya ayaan geynay halkan dalkan South Africa waxaan joogi doonaa muddo gaaban oo aan runtii aan rabo inaan is aragno aan la hadlo dhigayga ururka saxafiyiinta South Africa saaxiibkay Tuwani Gumani oo arrimo dhowr ah inaan ka wada hadalno asagana ay tahay arrimahaas baan halkan u yimid iyo inaan arko dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee halkan jooga magaalada Johannesburg jooga waxaan ku sii wajahanahay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo uu ka dhici doono kulan looga hadlayo xorriyadda saxaafadda oo uu abaabulay ururka saxafiyiinta adduunka ee IFJ waxyaabaha xoogga lagu saari doono ayaa ka mid ah dhibaatada lagu hayo saxafiyiinta iyo dambiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah saxafiyiinta dalalka diiradda ay ku saarayso ururka saxafiyiinta adduunka IFJ-da waxaa ka mid dalkeena Soomaaliya koonfurta Suudaan Ciraaq iyo Falastiin. Cumar Faaruq Cusmaan ayaa sidoo kale ka hadlay xarig dhawaan ciidamada Kenya ay u geysteen saxafiyiin Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay wariye Xasan Sheekh Cumar oo ka mid ah howlwadeennada TV-ga Hon Cable xaruntiisa magaalada Nairobi waxa uuna ugu baaqay xukuumadda Nairobi in ay joojiso ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed. si joogto ah ayaan u wada xiriirnaa saxafiyiinta mar walba ay nagu soo wargeliyaan tacadiyada ku socda iyo runtii yani qabashada iyo xariga oo sharci darada xitaa ayagoo sharci haysta in la xirayo runtii ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed aad buu u cambaaraynayaa wuxuu taageero u muujinayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ku haysata magaalada Nairobi gaar ahaan dalka Kenya mana aha wax sax ah waa wax loogu talagalay in lagu khatar geliyo waxa muuqan karana waxa ay tahay in aanan loo kala aaba yeelayn qofka duu suxufi yahay hadduu ganacsado yahay hadduu qof siyaasi yahay sharci ha wato ama sharciyuusan wadanin la dhibaateynayo waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha amniga iyo dowladda Kenyaba inay joojiyaan raafka iyo handadaada iyo xariga ay u geysanayaan saxafiyiinta Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Hon Cable Tebo International Airport Koonfur Afrika.